Sarah waxay u dhaqaaqday dhanka kalandarka gidaarka ku dhegan. Muuqaalka dayrta ee ku sawirnaa wuxuu ku beeray hilo weyn. Si kedis ah, gacmo aan tiro lahayn ayaa ka soo baxay gidaarka. Ilbiriqsigii xigay, Sarah ayaa si lama filaan ah uga toostay helikobtar. Waxay noqotay in waxaas oo dhan ay ahaayeen riyo xun oo keliya. Sarah waa cilmi baade. Iyadu iyo saaxiibadeed waxay ku maqan yihiin raadinta dadka ka badbaaday. Maadaama fayraska zombiesku si xawli ah u faafayo, dunida bini'aadamka waxay ku dhowdahay inay gebi ahaanba burburto. Hadda zombiesku waxay ka badan yihiin dadka nool tiro dhan 4 eber ilaa hal. Wadooyinka madan xitaa jiir laguma arko. Irmooyinka lacagta cadaanka ah waxay noqdeen wax aan wax faa'iido ah lahayn dhammaadka dunidan. Miguel Salazar wuxuu hayaa cod baahiyo wuxuuna si joogto ah u qaylinayaa. Wuxuu doonayaa inuu ogaado haddii ay jiraan dad nool oo meel u dhow jooga, laakiin qof nool ma soo baxo. Halkii zombieskii aamusan ayaa ka falceliya codka. Waxay sii daayaan qaylo xanaaq leh waxayna u dhaqaaqaan dhanka codka. Doorasho kale ma jirto, sidaas darteed Sarah iyo Miguel waxay dib ugu laabtaan aaga ammaanka. Aagaas waxaa ku wareegsan silig iyo qodxo leh iyo xayndaabyo amni. Hadda taas ayaa zombieska ka ilaalinaysa inay soo galaan. Inta badan maalmaha Sarah iyo dadka kale ee badbaaday waxay ku nool yihiin saldhig dhulka hoostiisa ku yaal oo ka hooseeya aaga ammaanka. Si ay u helaan hab ay kula dagaalamaan fayraska zombieska, waxay bilaabaan inay daraaseeyaan zombieska. Taas awgeed waxay qabtaan tiro zombies ah waxayna ku xiraan saldhiga. Ilaalinta ammaanka saldhiga iyo qabashada zombieska waxaa dusha ka saaran askarta. Markan intii lagu jiray qabashada zombie dumar ah, Miguel sidoo kale wuu ka qayb galay. Maadaama uu maskax ahaan deganayn, wuxuu ku sigtay inuu saaxiibkiis qaniino zombie, isaguna wuxuu ku sigtay inuu noqdo cunto zombies. Dhibaato badan kadib waxay ku guuleysteen inay qabtaan laba zombie, mid lab ah iyo mid dhadig ah. Markii ay ka baxayeen goobta tijaabada, askartu way is elin kari waayeen inay farta dhexe u taagaan zombieska. Taasi waxay zombieska ku riday xanaaq aad u weyn. Sida muuqata, zombieskan waxay u muuqdaan inay fahmaan calaamadaha gacanta, isla markaasna weli waxay hayaan falcelino u eg kuwa bini'aadamka. Nasiib darro, Logan oo jooga saldhiga ayaa cilmi baaris waday muddo dheer, laakiin welina uusan keenin natiijooyin ay ciidamada ku qancaan. Tani waxay ka dhigtay sarkaalka militariga ah Captain Rhodes mid aad u dulqaad yar. Kadib oo dhan zombieskan dhammaantood waxaa qabtay ciidamadiisa oo naftooda halis geliyey. Si uu hawsha u dedejiyo, Logan wuxuu bilaabay inuu shaqeeyo saacado dheeraad ah. Ugu dambeyntii wuxuu helay faham ku saabsan sida zombiesku u dhaqmaan. Zombieskan uma baahna wareegga dhiigga, uma baahna xitaa xubno jir oo dhammaystiran. Ilaa inta maskaxdu jirto, weli waxaa dhaqaajin kara rabitaan noocuun ah. Logan wuxuu aaminsan yahay in haddii la xakameeyo maskaxda zombiga, laga dhigi karo inuu adeeco amarada bini'aadamka. Aragti ahaan, fikradani waxay leedahay macne. Haddii wax walba si wanaagsan u socdaan, bini'aadamku xitaa waxay awoodi karaan inay iyagu xakameeyaan zombieska. Laakiin dhibaatadu waxay tahay in qaliinka noocan ahi uu qaato waqti aad u dheer, saldhiga dhexdiisana ay jiraan dad aad u yar oo samayn kara cilmi baaristan. Natiijo sidan oo kale ah si cad uma qancin karto Captain Rhodes. Iyagoo wada hadlaya, qofkii tijaabada lagu waday ee saarnaa miiska qaliinka ayaa si lama filaan ah u bilaabay inuu gilgisho. Logan aad buu u feejigan yahay. Wuxuu si adag ugu muday matoorka qodista maskaxda zombiga. Maalin maalmaha ka mid ah, Captain Rhodes wuxuu isu keenay dhammaan dadka. Wuxuu dalbaday in Sarah iyo Logan ay sida ugu dhaqsaha badan u keenaan natiijooyin lagu qanco. Ciidamadiisu way ka daaleen qabashada zombieska, waxayna xitaa kasii daaleen nolosha mugdiga ah ee saldhiga dhulka hoostiisa ku yaal ee aan qoraxda lahayn. Waxay aaminsan yihiin in marka la helo dawo fayraska zombieska ay dib ugu laaban karaan noloshii dusha sare ee dhulka. Captain Rhodes oo aad u xanaaqsan ayaa u hanjabay Logan. Haddii uusan weli keenin natiijooyin faa'iido leh, wuxuu ku tuuri doonaa kooxda zombieska si ay uga dhigtaan qadadooda. Inkasta oo qof walba gudaha aad uga xanaaqsan yahay maamulka adag ee Captain Rhodes, haddana waxay ku kasban yihiin inay aamusan yihiin. Laakiin Logan weli wuxuu ku degan yahay fikradiisa. Haddii aysan si buuxda uga adkaan karin zombieska, markaa waa inay isku dayaan inay noqdaan sayidyadooda. Maalmo yar kadib wuxuu bilaabay tababar xoogan oo lagu sameeyo hal zombie. Mar kasta oo zombigu adeeco amar, waxaa la siiyaa hilib uu cuno. Waxaa laga yaabaa inuu dareemayo in caqligiisa la yasayo, sababtoo ah zombigaasi wuxuu u muuqdaa mid si adag uga soo horjeeda. Logan wuxuu si xor ah uga hadlay habka uu sameeyo cilmi baaristiisa. Sababta uu kalsoonida badan u leeyahay ayaa ah inuu hore u tababaray hal tijaabo oo lagu qanco. Waa zombie lagu magacaabo Bub. Wuxuu qaaday mandiiltii saarneyd miiska, kadibna wuxuu bilaabay inuu iska xiirto isagoo muraayada hortaagan, inkastoo wejigiisa aanu hal timo oo dheeraad ah ka bixin. Wuxuu xitaa iska jaray ilaa uu dhiig ka soo baxay. Hal daqiiqad gudaheed wuxuu u ekaa qof caadi ah. Isla markiiba kadib Bub wuxuu qaatay buuggii saarnaa miiska. Waxaa muuqata inuu ka gaar yahay zombiga caadiga. Isla waqtigaas, Captain Rhodes ayaa isagoo xiiseynaya soo galay shaybaarka. Hortiisa Bub wuxuu si dabiici ah u qaatay taleefanka. Wuxuu xitaa afkiisa ka soo saaray dhawaaqyo aan cadayn. Sida Captain Rhodes uu ula yaabay, tallaabadii xigtay ee Bub ayaa qof kasta oo qolka joogay ka yaabisay. Bub wuxuu dhab ahaantii u taagay salaanta militariga Captain Rhodes. Waxay u muuqataa inuu askari ahaa markii uu noolaa. Logan wuxuu rabaa in Captain Rhodes uu salaanta dib ugu celiyo. Sidaas ayuu u daawan karaa falcelinta Bub. Laakiin Captain Rhodes waxaa ka buuxa quursi. Inuu salaamo zombie, maya, xaaladdu waxay noqotay mid aad u qalafsan. Doorasho kale ma jirto, sidaas darteed Logan ayaa qasban inuu isagu tusaale bixiyo. Kadib wuxuu miiska saaray bastoolad. Bub ayaa bastooladii si xirfad leh u qaatay. Wuxuu hubiyey rasaasta, kadibna afka qoriga ayuu u jeediyey Captain Rhodes. Inkastoo Logan uu si joogto ah u adkeynayay in qorigu aan wax rasaas ah ku jirin, haddana tallaabada xigtay ee Bub ayaa qof kasta ka dhigtay inuu dhidid qabow dareemo. Waxaa la maqlay hal dhawaq oo kliki ah oo ka yimid qoriga madan. Muuqaalka Bub wuxuu u ekaaday mid niyad jabsan, waxaana dhaqaaqii uu hadda sameeyey si buuxda uga careysiiyey Captain Rhodes. Wuxuu soo bixiyey bastooladiisa isagoo diyaar u ah inuu Bub isla goobta ku dilo. Markii uu taas arkay, Logan si degdeg ah ayuu jirkiisa ugu hortuuray Bub. Kadib oo dhan Bub wuxuu ahaa natiijada cilmi baaristiisa ugu qaalisan. Captain Rhodes aad buu u xanaaqay. Wuxuu Logan ku eedeeyey inuu waqtiga ku luminayo cilmi baaristan quruxda badan balse aan faa'iidada lahayn. Laakiin Logan wuu adkaystay.
wuxuu aaminsan yahay in bub uu durba muujiyey xirfado bulsho oo aasaasi ah tababar dheeraad ah haddii la siiyo waxaa laga yaabaa inuu dhab ahaan u noqdo qof caadi ah markii uu maqlay fikradan waalida ah Captain Rhodes aad buu ula yaabay laakiin waqtigaas dood kama keeni karin ilbiriqsi gudihiisna waxaa la gaadhay waqtigii mar kale zombies la qaban lahaa maadaama ay dad yari jireen Miguel ayaa mar kale lagu daray howlgalka taariikhdu mar walba si yaab leh ayay isu soo celisaa laakiin markan nasiib uma yeelan Miguel si kama ah ayuu u sii daayay zombiya dumar ah zombigaas gaajaysan ayaa ilbiriqsiyo gudahood qaniinay qoorta askari markii uu arkay muuqaalkaas Miguel gebi ahaanba wuu burburay intii uu la dagaalamayay zombiga gacantiisa ayaa sidoo kale la qaniinay Miguel ma aqbali karin xaqiiqadan wuu jeestay wuuna cararay Sarah waxay ku qasbanaatay inay daba ordo labadooduba waxay si degdeg ah u gaageen goobta uu joogo duuliyaha helikobtarka ee John si ay uga hortagto inuu Miguel isu bedelo zombie Sarah waxay qaaday mindideeda waxayna markiiba ka jartay gacantii cudurku galay si ay dhaawaca u daaweyso dab ayay ku gubtay meesha gacanta laga jaray isla waqtigaas Captain Rhodes iyo raggiisii ayaa halkaas ku soo gaadhay inkastoo Sarah marar badan sharaxday haddana waxay doonayeen inay Miguel dilaan labada dhinac waxay galeen is-horfadhi adag ilaa Sarah ay ballan qaaday in haddii Miguel dhab ahaan isu bedelo ay iyadu gacanteeda ku dili doonto ugu dambeyntii Captain Rhodes wuxuu Sarah siiyey hal fursad markii Miguel la dejiyey Sarah waxay dib ugu noqotay shaybaarka iyadoo qorsheynaysa inay soo qaadato dawooyinka xanuunka laakiin waxay aragtay Dilogan oo mar kale tababaraya bub markan Dilogan wuxuu bub u geliyey sameecado si uu muusig u dhageysto markii Dilogan gacantiisa u fidiyey indhaha bub isla markiiba way isbedeleen tani waxay qalbiga Dilogan ku abuurtay cabsi yar wuxuu ku sigtay inuu u maleeyo in bub doonayo inuu cuno nasiib wanaag bub wuxuu rabay oo keliya inuu ka hor istaago inuu sameecadaha ka qaado waxay u muuqataa inuu yahay zombie jecel muusiga hagid iyo dulqaad badan oo uu bixiyey Dilogan kadib bub wuxuu xitaa bartay sida loo isticmaalo qalabka muusiga lagu ciyaaro si uu ugu abaalmariyo waxqabadkiisa Dilogan wuxuu markiiba u keenay baaldi ay ku jiraan hilib iyo dhiig habka uu bub u cunayay ayaa si lama filaan ah isha ugu dhacay Captain Rhodes markii uu meesha marayay Captain Rhodes isla markiiba wuxuu weydiiyey Dilogan halka uu hilibkani ka yimid kadib waxay heleen meyd askari oo si xun loo googooyey Dilogan dhab ahaantii wuxuu bub ku quudinayay jirka askariga Captain Rhodes gebi ahaanba wuu qarxay isaga oo aan sugayn wax sharaxaad ah wuxuu soo bixiyey qorigiisa wuxuuna Dilogan ku dhuftay rasaas isagoo dhulka ku tuuray isla markiiba kadib Captain Rhodes wuxuu la wareegay qoryihii dhammaan dadka aan askarta ahayn dhanka kale maadaama Sarah weli soo noqon weyday John wuxuu go'aansaday inuu baxo si uu eego waxa dhacay meel fog ma gaadhin markii uu la kulmay Captain Rhodes iyo kooxdiisa Sarah iyo Trevor waxay durba noqdeen maxaabiistiisa markii uu arkay xaaladaas John ma lahayn hab uu isaga difaaco wuxuu si qasab ah u dhiibay hubkiisii wuxuuna isu dhiibay Captain Rhodes wuxuu amray John inuu duuliyo helikobtarka wuxuu doonayay in John isaga iyo raggiisa ka qaado saldhigga qof kasta oo kale waxaa looga tagay saldhigga si ay iskood isu badbaadiyaan John oo dabeecad kulul leh markii hore ma aqbalin laakiin Captain Rhodes wuxuu noqday nin aan naxariis lahayn wuxuu markiiba madaxa ka toogtay Trevor intaas kuma ekaan wuxuu sii waday inuu John u hanjabo haddii uusan adeecin Sarah ayuu ku tuuri doonaa marinka si ay zombiesku u cunaan markii John uusan haysan doorasho kale Sarah iyo Bill waxaa durba lagu qasbay inay galaan gudaha marinka dheer wax kasta oo ku hareeraysan waxay ahaayeen mugdi madow zombies ayaa marba mar ka soo boodayay nasiib wanaag labadooduba mar kasta way ka baxsadeen khatarta dhanka John markii Captain Rhodes uusan fiirsanayn hal feer ayuu ku dhuftay oo dhulka ku riday markii uu eegay meydka Trevor John wuxuu jeclaa inuu isla markiiba dilo Captain Rhodes laakiin ugu dambeyntii wuu isxakameeyey waqtigan qof walba wuxuu iska indho tiray hal qof waana Miguel isagu sariirta uma jiifin isagoo sugaya dhimasho halkii markii ilaalada dabacsanaadeen ayuu si dhuumasho ah ugu dhaqaaqay geeska aaga ammaanka waxaa laga yaabaa inuu ogaa inuusan waqti badan noolaan doonin ama laga yaabee inuu rabay in qof walba la halaago isaga laftiisa Miguel wuxuu marka hore furay sirigii qodxaha lahaa kadibna wuxuu naftiisa ka dhigtay sad daqiiqadii ugu dambeeyey ee noloshiisa wuxuu furay wiishkii u degayay saldhigga wax yar kadib kooxihii zombieska ayaa saldhigga ugu soo qulqulay sida daadweyn askartii way naxeen waxayna bilaabeen inay si waali ah u cararaan waxa aan cidina filayn ayaa ahaa in Captain Rhodes uusan dan ka lahayn inay noolaadaan ama dintaan wuxuu ku booday gaadhi yar wuxuuna ku baxsaday xawaare sare wuxuu ciidamadiisii uga tagay halkaas iyagoo sugaya dhimasho muddo yar gudaheed qaar ka mid ah askartaas ayaa nool iyagoo la kala jeexjeexay zombieska muuqaalku wuxuu ahaa mid aad u naxdin badan dhanka kale bub oo ku jiray shaybaarka ayaa sugayay laakiin Dilogan weligiis ma iman wuxuu bilaabay inuu deganaan waayo wuxuu xitaa furay katiinadihii gacmihiisa isaga oo keligiis ah wuuna baxay markii uu arkay Dilogan oo dhex jiifa barkad diig ah wuxuu u muuqday mid qalbi jab weyn qaba kadib bub wuxuu qaatay bastooladii dhulka taalay sida uu u qabtay waxay u muuqatay inuu doonayo inuu u aargudo Dilogan wax yar kadib bub wuxuu la kulmay mid ka mid ah raggii Captain Rhodes ninkaas isagoo ku kalsoon qoriga gacantiisa ku jira haba yaraatee si dab ah uma qaadan bub oo banaanka albaabka taagan kadibna musiibo ayaa dhacday zombie ka dambeeyey ayaa si kedis ah u weeraray qoortiisana qaniinay ugu dambeyntii wuxuu ku qasbanaaday inuu isdilo haddaba Captain Rhodes oo baxsanaya xagee ayuu aaday wax lagu qoslo ayay noqotay sababtoo ah markii uu muddo dheer saldhigga dhex wareegayay wuxuu ugu dambeyntii fool ka fool ula kulmay bub sababtoo ah wixii hore uga dhacay shaybaarka labadooduba durba colaad ayay ka dhexaysay xusuusta gaarka ah iyo awoodda falcelinta ee bub awgeed wuxuu u muuqday inuu durba ogaaday in qofkii dilay Dilogan uu yahay Captain Rhodes ka hor intuusan xitaa rasaas gelin qorigiisa bub ayaa toogtay argagax awgiis Captain Rhodes wuxuu ku sigtay inuu si toos ah ugu dhex ordo kooxda zombieska xilligii ugu halista badnaa bub ma uusan ilaawin inuu mar kale rasaas ku dhufto ugu dambeyntii bub wuxuu xitaa siiyey salaan military oo rasmi ah dhanka John wuxuu dagaal ku dhex maray hareerayntii ugu dambeyntii wuxuu dib ula midoobay Sarah dhammaadka sheekada Sarah John iyo Bill waxay fuuleen helikobtarka waxay si guul leh uga baxsadeen saldhiggii dhulka hoostiisa ku yaalay kadib waxay ku degeen jasiirad yar halkaas wax walba waa degan yihiin oo nabdoon yihiin sida jano ka fog dunida ma aha oo
keliya inaysan jirin zombies balse marka ay gaajoodaan waxay xitaa kalluumaysan karaan cunto